بارسو دو maxaa ka soo dhacay magaalada Muqdisho waa maasantahay Brandine Farax sida uu sheegtay caaway waxa ay ku beegantahay 65 sano guuridii markaas ka soo wareegtay markii gobolada koonfureed ay ka qaateen xorriyadda gumaysiga Talyaaniga isla markaana ay dib u midoobeen goboladii koonfur iyo sidoo kale gobolada waqooyi ee dalkeena sida uu sheegtay caaway dabaaldegyo waaweyn ayaa ka socda magaalada Muqdisho meelo fara badan ayaa sidoo kale laga dareemayaa xorriyadda iyo dabaaldegga iyo dadka oo u badan yihiin dhalinyaro iyadoo waxa ku arkaysaa gobolada waxa ku arkaysaa wadooyinka waaweyn iyagoo markaas maraya sidoo kale gaadiidka ayaa kamid ah waxyaalaha calamada runtii lagu soo taxay wadooyinka ay aad u marayaan sidoo kale waxa jira meelaha goobooyinka ganacsiga oo kale sida hoteelada iyo sidoo kale meelaha dadka isugu yimaadaan oo kale calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu sharaxay sidoo kale heesaha calanka iyo sidoo kale mid kale wadaninimada iyo heesaha xorriyadda oo dhan ayaa kulli la qaadaya dadka sidaas sheegtay wadooyinka magaalada Muqdisho waxa arkaysaa gaadiidka dadweynaha oo mootooyinka maadaama Muqdisho ay u badan yihiin waxaan ka hadlaynaa Muqdisho hadda ay tahay mootooyinka saddexda lugood ee bajaajka loo yaqaan waxa lagu arkayaa calanka Soomaaliya ay ku xirnay yihiin dadkuna waxa la arkay iyagoo wadooyinka qaar xilligan aan dadka la hadlayno iyagoo raxan u maraya ama koox u maraya oo calankii mariya ka samaysan wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ayaa sidaas oo kale xiran hadda xilligan gaar ahaan wadadan hormarta taalada daljirka daahson oo qorsho yahay maalinta bariya fantasy weyn lagu soo bandhigo sidoo kale burhana waxyaalaha aad iyo aad loo hadlayo waxa kamid ah dabcan markii la gaaro munaasabadaha waaweyn oo maalmaha xorriyadda oo kale iyo sidoo kale markii la dabaaldegano oo kale la sameeyo qaarna waxa la dhigi karaa iyada naftigeeda caawa oo kale ama 26 Juun oo kale si weyn ayaa looga dareemaa dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho meelaha hadda sida gaarka muuqaalada nooga soo gaareen waxa kamid ah oo wararku naga soo gaarayaan isgoyska lambar 4 oo dad badan ay hadda joogaan sidoo kale isgoyska Taleex ayaa kamid ah xeebta Liido kale wararku waxay meelaha ugu badan dadku hadda isku sii urursanayaan ama dabaaldega ay ku sugayaan iyo meelaha kale loo dalxiis tago magaalada dhexdeeda muxuu saayay jooga dadka marka fiiriso jooga dadka marka fiirisid waxa ka dareemaysa farxad aad iyo aad u fara badan dadku in maaragtay ay ku faraxsan yihiin in u dabaaldegaan waxa ku yiraahdo xorriyadda iyo sidoo kale waxa arkaysaa dad aad u fara badan oo runtii qulqulaya wadooyinka oo markaas u socda meelaha loo dalxiisto sida uu soo sheegtay meelayn fara badan ayaa jira dabcan lagu xuso runtii munaasabada weyn waxa ay ka dhici doontaa caawa filada Soomaaliya oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kala qayb geli doona dadweynaha fara badan iyo mas'uuliyiin kala duwan iyadoo khudbado kala duwan halkaas laga jeedin doono dadka ugu taxan toos ay u daawan doonaan hadii la idmo munaasabadaas weyn ee Muqdisho caawa ka dhacaysa ilaa calasaadka idaacadana toos ay ahaan doontaa halkaana toos ay kaga daawan doontaan hadii ay beedmo waxa sidoo kale toos noo ahaan doona munaasabada maalinta bariya qabsoomeysa ee fantasiya haweenah kooda Luulyo ama kooda July ama Brima Luulyo qof sida u yaqaano waxa ay ku astaysan tahay maalinta gobonimada gobolada koonfureed oo Talyaanigu uu ka baxay Soomaaliya dhinaceeda koonfureed uu gumaysan jiray 1960 sidoo kale waxay ku astaysan tahay munaasabada labaad weyn ay tahay midowga ama israaca labada gobol ee waqooyi iyo koonfur oo Soomaaliya jamhuuriyadda weyneed ayaa dhalatay taariikh iyo warbixino gaar ah ka diyaarinayna halkan ay kala socon doontaan isha nagu haya hadii ay beedmo toos ayaad xaalad walba oo soo kordhana aan ugu la socdo